waa rag kala raagay oo aan mudnayn inay ismoogaadaan intaas laakiin laascaanood muddadii Soomaaliland gacanta ku haysay waxaa ka maagay imaanshaheeda qof kasta oo diidanaa damacii maamulkaasi xildhibaan Cabdi Warsame Qowdhan oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ku metela gobolka Sool 15 sano kadib aroortan ayuu dhex marayaa suuqa magaalada Laascaanood ka gadaal kolkii shacabku halkan banaanka ka dhigay ciidamadii Soomaaliland Cabdi Qowdhan waxa uu bilowgii taageeray halgankii shacabka gobolka Sool ee ku bilowday banaanbaxa iyo dhagax tuurka isagoo oo golaha baarlamaanka ka sheegay doonista dadka uu metelo dadkaas ilaa iyo maanta iyo maalintii waxay ku taagan yihiin qadiyadda midnimada Soomaaliya ilaa waagaasi bilowga waxaa la soo maray toddobaadyo kala duwan sida maalmo buluugan oo dadku doonistooda muujiyeen kuwa jilibka la isu laabay oo shacabka deegaanku militariga Soomaaliland meel mariyeen iyo xitaa marar maamulkaasi si joogta u duqeynayay goobaha danta guud xildhibaan Cabdi Qowdhan kolkan ayuu saxminayaa dhibaatooyinka Soomaaliland u geysatay goobaha muhiimka ah ee deegaankan hospitaalka guud ee magaalada waxaa jiifa dhaawacyadii ku waxyeeloobay dagaalkii dadka deegaankan ay la galeen ciidamada Soomaaliland xildhibaankuna waxa uu booqday dadkaasi oo uu mid isu dultaagay bartani waxa ay ahayd dhismihii kaydka dhiigga ee Soomaaliland madaafiicda ku garaacday waxaa burburay in badan oo ka mid ah qaybtaas iyo xitaa meelo kaleeto sida qaybta hooyada iyo dhallaanka oo madaafiicdu dhulka dhigtay waxyeeladu intaasi kuma koobna sidoo kaleeto xildhibaan Cabdi Qowdhan waxa uu isdul taagay haamihii oxygen-ta oo rasaastii ku dhacday darteed shaqo gab noqday halkan waa soolartii hospitaalka oo hubkii Soomaaliland ee magaaladan la dhacaysay uu ka dhigay dukun daakum iyaduna waxa ay ka mid tahay meelaha la geeyay xildhibaanka oo soo indheeyay kormeer kadib xildhibaanku waxa uu la shiray shaqaalihii naftood hurayaasha ahaa ee u hagar baxay la tacaalida boqolaalkii qof ee maalin walba soo dhaawacmayay shirkaasi isxaq waraysi kadib xildhibaan Cabdi Qowdhan waxa uu sidoo kale booqday hospitaalka Manhal oo isaguna ka mid ah kuwii u soo dhabaradaygay culeysyadii soo fulay masaajidada ayaa ka mid ahaa meelihii maanta xildhibaanku tagay ee hore Soomaaliland duqeynta uga geysatay